Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena Ramadan English series ee aan idinkugu soo gudbinaynay erayada iyo jumlooyinka loo isticmaalo Ramadaanka si aad u sare ugu qaato vocabulary-gaaga luqadda Englishka guud ahaanteeda. Maanta waa maalintii 11aad weeyaan, waxaana kaga hadlaynaa nutrition, hydration and balanced eating. Nafaqeynta guud iyo biyaha, hydrationka waxa weeyaan biyaha cabista ayaan ka hadlaynaa, iyo cunto isku dheellitiran inaan cunno si uu Ramadaanku inoogu naqanin ama nafaqa daro aysan inoogu dhicin. Soo dhawaada mar kale, waxaa soo jeedinaya barnaamijka anigoo ah Ustaad Mohamud Ahmed xaaji, maamulaha iyo macalinka Waxkabaro Academy. Muddo 15 sano ka badan aan luqadda barayay. Haddii aad xiisaynayso koorsadeeda Englishka Special English Program, warbixinta insha Allah videogan hoostiisa ayaad ka heli doontaa. Jumladeena ugu horeeya maanta waxay ku saabsan tahay try to avoid salty foods during Suhur because they can make you feel thirsty later. Isku day inaad ka fogaato cunista cuntada cusbada leh. Salty food waa cuntada cusbada leh. Avoid wax weeyaan ka fogaasho ama ha u dhawaanin weeyaan, ama ha cunin ama ha u dhawaanin weeyaan, ama iska yaray. Try to avoid, ka fogow, salty foods during Suhur, cuntooyinka cusbada leh, ka fogow ama ha u dhawaanin, because they can make you feel thirsty later. Maxaa yeelay oon ayay ku keeni karaan hadhow. Oon ayay ku keeni karaan ama haraad ayay ku keeni karaan. Waxaa loo yahay cusbada inay jirkeenu ka saarto, biyaha ka saarto. Cusbada markay jirkaaga ku badan tahay, biyaha ayaa yaraanaya. Ma fahanta? Marka cuntooyinka cusbada leh yaana lagu suxuuranin. Alright, isku day inaad waa sharaxnay Af-Soomaaliga waan ka sharaxnay. Marka waxaan baranay maanta vocabulary aan baranay waxa weeyaan waa avoid oo ah ka fogow ama ha u dhawaan weeyaan. Stay away from something, inaad wax ka fogaatid weeyaan. Qaybta commentiga ku soo qor erayga avoid adoo isticmaalayo jumlo kalena ka fikirayo. Jumlo kale oo aanan Ramadaan qusaynin ka fikirayo. Salty waa cusbo weeyaan, cusbo leh. Cuntooyinka cusbada leh ama cuntooyinka dhadhanaan waan jeclahay, ama qayb commentiga ku soo qor insha Allah ayadana jumlo aad isticmaalayso salty. Waa fahanteena filaya. Haddii aad applicationka igala socoto, codadka hoos ayay mar walba ku yaalaan, waad dhegeysan karaysaa. Qaybtana labaad ayaan u gudbaynaa. A balanced meal with protein and fiber will keep you full for a longer time. Ama for longer. Cunto isku dheellitiran. Eraygaan barnayn waxa weeyaan balanced meal waa cunto dheellitiran weeyaan oo wax walba cuntooyinka looga baahan yahay laga helayo. Oo ay ku jiraan qaasatan protein iyo fiber ay ku jiraan. Cuntada proteinka leh iyo fiberka leh. Fiberka waxa weeyaan waa wax cuntooyinka qudaarta kale iyo fiberka laga helo sida ansalaatada kale iyo wixii la midka weeyaan. Cuntooyinka fiberka iyo proteinka ay ku badan yihiin oo balanced waxay ka saacidayaan inaad dheregsanaatid. Will keep you full inaad dheregsanaatid ama aysan baahi ku qabanin muddo dheer. Inaysan baahi ku qabanin muddo dheer ayay ka saacidayaan. So waxaan baranay balanced meal, cunto isku dheellitiran. Qaybta commentiga ku soo qor cunto isku dheellitiran adigoo jumlo kale aanan tan qusaynin, tan ahaynin isticmaalayo. Keep you full macnaha way ku dharajinaysaa weeyaan, waa ku dheregsanaanaysaa. Ayadana isku day inaad jumlo aad soo ka fikirto. Mar walba aad maskaxdaada toojiso oo aad eray aad ka fikirto inaad jumlo geliso, waxa weeyaan waxaa ku fududaanaya vocabulary-ga maskaxdaada ku jiro ayaa badanaya. Alright, midka saddexaad ayaan gudbaynaa. Drink water in small amounts between iftar and suhoor to stay hydrated. Waxaad cabaysaa biyaha u cab in yar. Small amounts waa in yar weeyaan. Hadba galaas cab maalinta habeenkii oo dhan si tartiib u cab inta u dhaxayso afurka iyo suxuurta inta u dhaxayso, to stay hydrated, si jirkaaga biyo u lahaado. Video ayaa idinku weydiiyey hydrated Af-Somali maxaa lagu dhahaa. Dad baa commentiyaal ka soo qoreen oo masha Allah erayo badan ayaan arkay. Well done ayaan idin dhahay marka. Inkastoo hadda aan xasuusin waadin in la yiraahdo jeclaha waadin. In saas la yiraahdo jeclaha oo qofka marka jirkiisa biyo ku jiraan. Good. Marka maxaan baranay small amounts marka waxa weeyaan tiro yar weeyaan ama in yar weeyaan, hal class. Biyaha ina hal mar iska wada badiso 1 litir cabto looma baahno. Inaad iskaba daysana looma baahno marka u tartiibso.
alright quizkani waxaad kaga shaqaynaysaa haddii aad applicationka aad ku jirtid oo aad kasoo shaqaynaysaa wixii aad baratay ayaa laga tijaabinayaa kadibna natiijo ayuu ku siinayaa waa 5 su-aalood weeyaan marka applicationka soo dejiso si aad quizka kaga shaqayso haddii aad Waxkabaro Academy ku cusub tahay waa goob laga barto luqadda Englishka qaab online ah oo aad iyo aad ugu raaxaysan doonto kana heli doontid wax badanne ka taya badan koorsooyinka kale aad magaalada ku soo aragtay haddii aad xiisaynayso faahfaahinteena halkan ayaad kala socon karaysaa u diyaar garooba cashirka xigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu